السلام عليكم أصحابتي قالي وايد سلام ميل بجوكتان waxaan idin leeyahay nabad farxad iyo caafimaad ku aan kusoo dhawaada channelkeena alxamdulilah shukra bil caalamiin allah subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay mahad iyo shukri oo dhan na soo gaarsiiyey rabadaankan anagoo caafimaad qabno alxamdulilah shukra bil caalamiin allah subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii ka faa'iidaystay cibaadadan laga aqbalay anigana waxaan idin leeyahay meelba aad joogtaan rabadaan mubaarak waxaan sameeyay afur yar oo fudud aan rabaa inaan ila wadaago ka kooban cabitaan doorsho mandazi chapati bariis hilib alxamdulilah shukra bilcaalamiin haddana waxaan ku hormareynaa sameyska doorshaha meeshas waxaa ii yaalo waxyaalihii doorshaha aan ka sameyn lahaa ka kooban saliid ukun caano sokor baking powder vanilla sokorta waa koob wax dhiman ukunta waa 3 xabo saliida waa nus koob caanaha waa nus koob kulli waxa dhan waxa sameynayaa blenderka ku shubayaa ama glaaska cabitaanka lagu shiido markaa ku shuban waxa sameynayaa waa shiidayaa kulli waa isla shiidayaa markaa shiido ka bacdina waxa sameynayaa bur ayaan ku darayaa waxa ku soo shubay sokortii ukuntii saliidii caanaha vanilada baking powderka gadaal uga darayaa intaas markaa isku shiido waxa sameyn doonaa baaquli aan ku gadinayaa saliida waa nus koob caanaha waa nus koob sokorta waa koob wax yar dhiman vanilada isticmaalayana waa taas wax yar aan ku daray adi waxa waaye nus qaado camal soo markaa hadda soo shiido waxa sameynayaa baaquliga ku gadinayaa baaquliga markaa ku gadiyo bur aan ku darayaa burka aan ku daraayana waa 2 koob 2 koob waa burka aan ku daraayo koobka cabirka isticmaalaya koobka cad oo caadiga oo wax lagu cabirto ma haysta aniga soo koobkaas cabirka haystaa waxa sameyn kartaa xataa qaada qaadan kartaa burka waa ku daray ilaa iyo uu doorshaha jilac zaa'idna uu ahayn adeeg zaa'idna uu ahayn qaada xataa kula isticmaali kartaa laakiin aniga hadda 2 koob aan ku shubayaa 2 koob markaa ku shubay qiyaastii aan rabay iyo sida aan rabay ku soo baxay soo weelkii aan ku shubi lahaa baking powderkana waa 1 qaado weelkii aan ku shubi lahaa foornada subag yar soo mariyay weelka aan foornada kula gelin lahaa doorshaha subag yar soo mariyay bura ku soo dul bilbilay ka bacdi markaa doorshaha si fiican u qaso waxa sameynaa waa ku shubaaya ka bacdi foornada gelinaya foornadan waxa waaye 100 iyo waxa u joojiyay 60 ilaa 170 u joojin kartaa laakiin mar walba waxa fiican dabka yar dabka aad zaa'id u badnayn dabka markuu zaa'id yahay wixii oo bislaanin uu gubi karaa soo foornada waxa geeyay 160 hadii ilaa 170 laakiin 160 150 160 fiican dab oo waxa waaye aan zaa'id ahayn doorshaan ku bislaanayo ma sha Allah waa kas doorshii waa ka soo bixiyay haddana waxa sameynayaa hilibkan waxa waaye hilib ari waaye pressure cooker-ka ku kariyay wax yar oo waxa ku daray rosemary aan ku daray oo caraf uga dhigayay hilibka markaas saas ugu soo kariyay waxa sameynaa digsi aad ku soo saar saliida ay ugu jirto basal aan si yar ugu jarjaraa ku soo shubaaya toon iyo sanjabiil ku soo daraaya carfis kala ku soo dari doona sida heel qorfo bahalkaas staala dhahayo bay leaf waxaas dhan ka isku yara shiilaadana xawaasha ku soo daray waxa dhan waa isla shiilaya ka bacdi maraqii hilibka aan ka soo saaraa ku shubaaya bariiskan ku shubaaya haddana markay karkaraan ma sha Allah bariiskeena sidaas uu diyaar noogu yahay xoogaa dabka u gaabinaya si tartiib u karo bariiska markaa ka dhigo ama intuu ii bislaanayo waxa sameyn doonaa hilibka carfinaya soo hadda bariiska markaa saas wixii carfis soo shiilay maraqii aan ku daraaya maraqii hilibka aan ka soo saaray waaye markay karkaraan maraqa iyo caraftan isku karkartana waxa sameynaya bariiska ku soo daraaya inta waxa ku haystaa saxan waxa iigu jiro 2 qaado oo plain yogurt wax yar oo paprika ama barbarooniga shiidan nus qaado toonta shiidan 1 qaado oo malaba wax yar oo cusbo soo intaas si fiican iskugu qasaaya intaas markaas si fiican iskugu qasan hilibka marmarinaya soo hilibka guduud oo macaan oo maxaa la dhahaa caraf badan uu iigu noqdo hilibka digsiga ku ridaya markaas aan carfiska u mariyo saliid yar ku shubaaya barbarooni basal aan ku daraaya saasaan iskula shiilaya adii ilaa iyo 8 daqiiqo camal sababta hilibku bisil yahay carfiskaana rabaa hal mar inuu dab helo
soo hilibkana diyaar markaa saas uga dhigo hilibkaa kusoo guraya waa marmarinayaa digsigaa ku shubaya basal barbarooni saliid waa yara shiilayaa markaas kabacdina waxaa waaye hilibkeena sidaas uu diyaar ku yahay bariiska diyaar waaye waxyaalo kale oo aan dubaa jirto oo aan idin tusin maasha allah bariiska saas u karkarayaa biyaha markay soo karkaraan bariiskaa ku shubayaa sida mandazi oo kale dubi sawaayad waqtiga inuu igu dheeraadaa diidayay soo ma idin tusin insha allah video kale soo gelin doonaa aan ku dubayo afaarahaasna ama cuntooyinkaas bariiska hadda cusbaa ku daray maasha allah bariiska markuu bislaado hilibkuu bislaado waxaa sameyn doonaa waxaa kaloo sameynayaa cabitaankana waxaa waaye qaro maasha allah hilibka saasuu kusoo baxay waxaa waaye waa ka dhigayaa dabka bariiskiina waa ka dhigay cabitaana rabaa inaan ka sameeyo qarahaasaa shiidaya maasha allah afurka diyaar waaye waxaa idin leeyahay inta kulmi doono muuqaal kaleeto cusub insha allah biidnillahi kariim fi amaanillaah